بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورالهي قالي وايد سلام الجوكتان كسو دوادا جانل كينا كارين اي قرحين ما شاء الله أصحابي ما انتو وحن إن شاء الله أن سميسانينا وحير ووجي أو سميسانينا فائدة إنو ليدهاي أما وجي أي ليدهاي فنل سيد كجيت كان لهايو فنل سيد كمركوا كيت كاسيدا سوئك وحواجب وإقواي geedka ما شاء الله faa'iidooyin fara badan ayuu wujud u leeyahay inuu nabrihi ka baabi'iyo inuu haarihi ka baabi'iyo maadooyinka ku jiraan maadada ku jirta waxaa la dhahaa anti-inflammatory la dhahaa taasoo baabi'inaysa nabraha marka hore inta aanan si fiican uga sii faaloonin insha Allah waxaan sameysanaynaa marka hore sida aan u sameysan lahaynay ayaan guda galeynaa insha Allah kadib ayaan ka faaloonaynaa markii aan soo hagaajisano halkan waxa iigu jira waa 2 qaado oo funnel seed ah waa geedka sida su'eg ee xawaajigu egwaaye halkan waxa ugu jiro bakeeriga haafkiisa oo biyo ah kadib waan isku darayaa markii aan isku daro dabka ayaan saarayaa 2 minutes ayaan ku soo karinayaa insha Allah si ay iga baxaan waxa gudaha ku jiro hadda waa kana dabka ayuu ii saaran yahay marka waxaan ka rabaa inuu iga baxo dhacaankiisa ayaan u baahanahay aniga uma baahna asiga lafaha insha Allah dhacaankiisa ayaan hadda u baahanahay marka dabkan ka dajinaya 2 minutes ayuu ii fuulay markuu ii qaboobo ayaan ku soo noqonaynaa waa kana waan soo miirtay biyihiisa ayaan ka soo miirtay sida u jeedin sidaas ayuu egyihiin kalarkaas ayay yeeshteen marka waxaan ku darsanayaa vitamin E oil vitamin E iyo waxaan ku darsanayaa glycerin saliidan la dhahayo marka alaabta marka la isku daro waxay leedahay benefiidayaal fara badan faa'iidooyin fara badan ayay leedahay faa'iidooyinkaas oo kala ah wajiga inay nadiifiso wajiga way ku nadiifinaysaa ma sha Allah waxay kale oo ka nadiifinaysaa wasaqda wajiga ku jirtay waxay kale oo ka nadiifinaysaa bakteeriyada wajiga ku jirtay waxay kale oo ka baabi'inaysaa ma sha Allah dulduleelyada dadka sidooda markay wajiga ka duldulaan dulduleelkaas bakteeriya ayaa ka gasho bakteeriyadaas ma sha Allah ayay ka nadiifinaysaa waa ma sha Allah daawo aan halkan lagu soo koobi karin waaye markay bakteeriyadaas ka nadiifiso ee dulduleelyada ka gashay unugyada dhintayna wajiga way ka saaraysaa ama jirkaada oo dhan meesha amarsato sideeda waxa waa wajiga hada markasta la daryeelin waxyaalaha kiimikada la maray ama waxba aan la marin markasta waxa soo gala unugyo dhinta ka soo keenayo degdeg oo gabow degdeg ah marka ma sha Allah hadda waxaan ku darsaday sida u jeedin waa vitamin E oilkii 2 xabo ayaan ku darsanayaa 2 xabo oo vitamin E oo vitamin E ah marka faa'iidada koobaad waa kaasa bakteeriyada ay wajiga ka saaraysaa dulduleelyadii ay yani ka gashay dulduleelkii yani wajiga dulduleelkiisii ay ku nadiifinaysaa oo meel siman ay kaaga dhigaysaa unugyada dhinta way ka saaraysaa faa'iidada koobaad waa taasa marka hore waxaan ku darsaday glycerin kadib waxaan ku darsaday vitamin E marka faa'iidada labaad ayaa waxay tahay funnel seedka waxa ku jirto maado la dhaho anti-inflammatory maadadaasoo ku fiican inay nabraha baabi'iso inflammatory waxay ku fiican tahay nabraha inay baabi'iso marka insha Allah waana wax dhab ah waa wax la soo ogaaday waxa aniga baari ma aha waa wax ma sha Allah dhaqaatiir adduunka ay ka soo baartay ma sha Allah marka bakteeriyadana way ka dilaysaa bakteeriyada waxyaalaha keeno ee sababi karo in wajigaada bakteeriyo ku dhaco iyadana way ka dilaysaa waxay kaloo ku sii fiican tahay wajiga dulduleelka yani dulduleelada ku yaalo dadka nabraha ay ka soo bixin ee dulduleelada ku yaalo inay u geejiso ee duleelada ay isqabsadaan wajigu wax duleel uu siyaalo dadka qaar markuu nabraha ka soo baxo kala meelaha ka gudgudmo ee duleelada ka yeeshto taasna way ka saacideynaysaa maadada saddexaad ayaa waxay tahay waxay ku saacideynaysaa wajiga inay يعني سفي عن أي أوجيجسو إنه يريسو يعني دلدلالة هدو كيلي إنه كيريسو دلدلالة هدي وين بكتيريا السفود أي أوجشة دلدلالك مركو وين بكتيريا السفود أي أوجشة لكن بكتيريا الجشة مركا كان مريسو وكده بجلاي وقاس صارايا دلدلالك نوسكوها قبسنا أرجنا بالوجياش لو طلع سيدي ويالان وجهنا هذا وجدين ووجه نبرله
markii la mariyo maasha Allah kiilin ayuu ku noqonayaa nabrihii wuu ka baaba'ayaa يعني waa qalajiyo kaleeto يعني markii wax qalajiye ah oo kaleeto oo wajiga marisay oo kaleeto ayuu ku noqonayaa maasha Allah ayuu noqonayaa bakteeriyadii يعني unugyadii dhintay waxyaalihii nabraha sababayay oo dhan ayay la dagaalamaysaa markaas qofku wuxuu arkayaa markuu 3 biri 4 biri uu marsado inuu maasha Allah uu ku soo baxo waxa kale dadka saacideynaysa dadka indhaha hoostooda afka hoostiisa garka hoostiisa meelahaas ka madmadow waxa kale oo ka saacideynaysa dulduleelada sida ujeedin waa dulduleelo sidaas u qaba ayaa jiro dulduleeladaas bakteeriyada way galaysaa way ka soo saaraysaa way isqabsanaysaa way ku guujinaysaa maasha Allah marka sida aad u marsanaysid ku soo hirtay sida u marsanaysid waxa way subaxii iyo habeenkii ayaa marsanaysaa habeenkii markii aad jiifanayso ayaa soo qabsanaysaa geedan sidaas ayaa ugu buufinaysaa wajigaada markii aad wajiga ku buufiso suuf yar ayaa soo qaadanaysaa suufkaas ayaa la marmarinaysaa waa iskala jiifanaysaa subaxii ayaa iska dhaqaysaa haddana maalintii sidoo kaleento ayaa marsanaysaa maalintii waxa ku joogi kartaa 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo maalintii marsanaanaysaa waa day and night amal habeenkii iyo maalintii ayaa u isticmaalaysaa marka wajigaada haduu saliid leeyahay saliida maasha Allah way ka yareynaysaa saliida haduu nabra leeyahay nabraha wixii jirku ku jiray ee nabraha soo bixinaya kuwaas ayay dilaysaa unugyadaas ayay la dagaalamaysaa bakteeriyada iyo waxyaalahaas ku jiro haduu wajigaada dulduleel leeyahay dulduleelada waxa jirta dulduleelada bakteeriyada way gashaa marka dulduleeladaas bakteeriyada wayna ka bixinaysaa woon isku qabsanaa duleelka haduu weynay kadaalika asina sidoo kale wuu yaraanaya wajiga way ku geejinaysaa wajiga markay geejiso waxa ka baxaya dulduleelada sidoo kale waxay ka baabi'inaysaa haaraha sida indhaha hoostooda madowga garka hoostiisa afka hareerihiisa meelahaas oo dhan maasha Allah way ka saacideynaysaa waa isku buufinaa adiga habeenkii marka jiifto indhaha isku qabsanaya waa isku buufinaa suuf yar ayaa soo qaadanaysaa waa iska marmarsanaysaa waa wax dabiici ah oo la hubo waa wax 100% ah hada alaabtan gabar abaaya u sameeyay gabadhaas abaayada ayaa insha Allah ayaa warka keeni doonta biidnilaahi kariim had celinteedana waa la sugayaa insha Allah haddii aad nagu cusubtiin soo dhawaada walaalayaal badan ayaa nagu soo biiray haddii aad nala joogi jirtana maasha Allah adiga nala sii joog siin share garee insha Allah si uga faa'iideystaan walaalaha kaleeto faa'iidooyinka ku jiro funnel seedkan faa'iidooyinkiisa maasha Allah halkan lagu soo koobi karo haddii cunud la dhaho iyo haddii cabid la dhaho iyo haddii marsasho la dhahaba marka wixii maasha Allah dabiici ayaa anagana anfacayo waxyaalo kasteetan waxaan jecelnahay oo aan ka faa'iideyno oo adikana faa'iido idii ah anagana faa'iido inoo ah inaan idin soo gudbino biidnillaahi kariim wadadikana wax ka faa'iideysan anagana wax ka faa'iideyno oo waxyaalo la hubana ka samaysan taasoo hortiina lagu samaynayo sida waxyaalaha dabiiciga oo kaleento oo gurigaada ku yaalo oo aad ka heli kartid ama qarash badan aan kaaga baahnayn hadda waxa laga yaabaa gabadhi markay nabro badan ka soo baxdo inay ku wareegto meelaha shoppingka lagu gado dhan ay dhahdo maxaa iga baabi'in karo duleelkan maxaa yeeli karo uma baahnid maanta kadib inaa yacni warwareegtid haddii aad videoga aragtay ama aad fiirsatay waaye isticmaal tijaabi waxaad tijaabinaysaa 2 isbuuc natiijada waa ku arkaysaa maahan macawada markaa marsatid biriba inaa natiijo badan arkaysid dadka qaar waxa laga yaabaa markay cawada marsadaan isla biri nabriyo yacni oo shiiqo dib u noqday inay arkaan sida nabraha kale degdeg loo arkaa laakiin dulduleelada degdeg looma arko dulduleeladu xirma isbuuc ilaa isbuuc in la siiyo oo habeen iyo maalin aad marsatid marka nabrihina sidoo kaleeto ayagana haarihii maxaa ku soo hiray haddii wajigaada bakteeriya ku jiro haddii waxyaalo dhinta ay ku jiraan dulduleelada haddii bakteeriya kaaga jirtay wajiga haddoo doqnimo kaa soo gashay waxaasoo dhan way kaa geejinaysaa iska dhisaal dhahaa bahashaan marka maasha Allah qofkii yaqaan wuu yaqaanaa intaan aqoonin maasha Allah maanta looga faa'iideynaya ee channelkay ku xiran una sii share gareey asxaabtiina haddii aad taqaaniin qof nabra dhibeen ama wajiga dulduleelo kule ama haarahaas ay ku yaaliin ama xitaa adigoon waxba aanan qabin oo nabar iyo waxba aan lahayn maasha Allah wajigaada uu ku fiican yahay waa marsan kartaa waxa u marsanaysaa waxay tahay bakteeriyada ayuu ka dilayaa haddii bakteeriyada ama wuxuu ka dilay haddii waqtigaas uusan bakteeriya ku hayn wixii bakteeriyadu ku keeni lahaa ee wajigaada ku jira ma fahamtay wixii bakteeriyadu ku keeni lahaa wajigaada ku jira ayuu kaaga difaacaya waa marmarsanaysaa
habeenkii subaxii waa iskala jiifanaysaa subaxii 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo sugaysaa ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.